maxaan kugu dhololayo dhaguhu erayada maqleen Good morning from Vancouver. مسوحنا نراهضا صباح الخير يا صباح الورد والعسل والياسمين. مسوحنا نراهضا الصبح وناكسن أرور صوبا أو عن الحمد لله I slept like a baby and this is my view and بدي بهالكالين عايا قصيف موقتا فيوغيغا أذما وناكسن بار الحمد لله imika waxaanu tegaynaa hoosta waxaanu soo galnay meeshaan ka cunteynaynay halkana nala yara fadhiisiyey waxaa la yidhi meeshu way buuxdaa miis baa laydin diyaarinayaa marka imika waa naga soo fadhiisanay shaah yaroo dee shaahii maaha ilaan dhaka jabiye shaah English tea bay yidhaahdaan waa biyihii oo kulul iyo shaahii iyo caanihii baad isku walaaqaysaa sonkor yarna dhac baad ku siinaysaa saa lagu leeyahay waa shaah that's English tea quraacdan yar baan dalbaday waxaan ku dhahay aniga taydi waa tan baan ka siinayaa dabadeetana insha allah suuqa leer kalenu gelaynaa meesha waa lagu kala yaacay qof kasta markuu calooshii buuxiyey fakatax buu ka yidhi aniguna insha allah iminkaanu baxaynaa suuqa leer kalenu gelaynaa maanta wadarku aad ayuu xun yahay roob badan baa jira dabayl iyo qabow laakiin insha allah anagu waan u joojin mayno waxaan tegaynaa insha allah meel la yidhaahdo Canada Place waxaa loo dhisay sidii doon oo kale xalayna waan idin tusay waxa wahayd meel aad iyo aad iftiin uga soo baxayay the other side of the city meeshan joognay mooyaane meeshii kale ayuu ku yaalay meeshaasan tegaynaa insha allah iyo meelo kaloo badan dee maanta waxaan jecelahay inaad waqtiga ila qaadataan koobkiina shaaxa soo qaata waxaad soo qaadataan bustihiina waxaan ku oray dee halkaa iga daawada baan diro like and share and subscribe kana dhacdhac ku siiya buildingkan aad arkaysaan waxaa la yidhaahdaa Vancouver Lookout waxaad ka daawan kartaa magaalada oo dhan anagu maanta insha allah ma tegayno waayo meelo badan baan doonaynaa inaan soo daawano halkan aynu joogno waxaa la yidhahdaa Gastown waxa ay ka mid tahay xaafadaha ugu qadiimsan magaaladan Vancouver halka aad arkaysaan ay dadku ku heeraysan yihiin ama ay joogaan waxay ka mid tahay meelaha ugu caansan xaafadan waxa ku taala saacadan oo la yiraahdaa steam clock waxa la sameeyay 1977 qiimaha lagu sameeyayna wuxuu ahaa $42,000 halkan saacadiiba mar ayay qaylisaa ilaa iyo 15 minutes so saacadu markay ku buuxsanto 15 minutes ayay sound bixisaa dadkuna intaasay ka helaan steamka yar ee kasoo baxaya iyada sound ay sameynayso imika dadkani waxaa laga yaabaa inay for the last 15 minutes 20 minutes ay halkaa taagnaayeen qabowga iyo dhaxanta u taagnaayeen balcodka bal aynu isla aragno anaga horta very lucky baanu hayno markiiba iyadoo saacad waxbaba ka harsanayn baanu nimi bal aynu isla aragno aniga horta markii igu horeysay idinkana bal jawaabta wad igu soo qori doontaan halkaas What do you think guys? Anigu soo arkay idinkuna kolley waad ila daawateene bal commentka xagga hoose igu soo qora anigu waxay xasuusiyaa uun tareenadii berigii hore ma garanaysaa dhagax lagu guri jiray dhuxusha ee qiiqa xagga sare ka sii dayn jiray iyo ma garanaysaa biibiilayaashii yaraa ee saa u dhuubnaaye ciyaaladu ciidaha linta loo soo iibiyey ku ciyaari jireen kiyuunbuu codkiisii la sii eegyahay فؤادا توجه
توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأن imikana waxaanu nimi Canada Place waxa ku yaala meel Discovery Center waxay soo dhigaan historygooda siday bowdadkooda u samayn jireen waxay ka samaysan yihiin all the information halkan ay dhigaan halkanaan daawanaynaa insha allah then kadib waxaan samaynaynaa dusha saraan u baxaynaa meeshaan idiin sheegaya doonida u ekayd ayaan insha allah arkaynaa beautiful view buu haystaa bal aynu isla soo aragno insha allah واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح qaybta kale aan idin tusayaa waa qaybtii aan xalay seexanay hotelkaygu ku yaalay annaguna the other side of the city ayaanu joognaa meeshaan idiin sheegaya boatka u ekayd waa halkan weeyaan fly over baa ku yaala dhaxantii qabowgii roobka waad arkaysaan halkanaan imika yara joogaynaa insha allah insidekana gelaynaa oo sii bal waxay meesha iskula hayaan kadibna waanu ka baxaynaa insha allah تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح halka aan idin tusayay imika waxaad ka qaadan kartaan diyaaradaha yaryar ee duula aad doonaysa magaalada inay kugu soo wareejiso ama ay meel kale ku geyso halkaasaad ka kiraysanaysaa halkaas aan idin tusayana waa meesha ay shidaalka kaga soo shubato ama ay kasii qaadato imika waxaan tegaynaa insha allah xaggaa ka shishaysa dhinaca qaybtaas ayaanu qabanaynaa insha allah فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل waxaanu joognaa xaggii qaybtianu joognaa mooyaane xaggii the front door the front entrance baan joognaa halkaasina waa haween halkay diyaaraduhu ku xidhnaayeen halkaasaanu tegaynaa insha allah laakiin migta ka horeysa xaggan aanu balgelaynaa aanu soo eegaynaa waxa ay ku hayaan meel cuntaana way jirtaa so waanu soo eegaynaa bal what type of food they have فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح Oh no.
waanu kasoo dhammaanay iminkana waxaan ku soconaa Granville Island meeshan bootkiyada ayaa la dhigtaa oo lagu parking garaystaa guryo waxaa jira floating houses badda dusheeda ku yaalo la dego market baa ku yaala marketkan iminka gelaynaa waan soo daawanaynaa insha allah then waxaa kaloo ku yaala public market kaasna waan tegaynaa waa laba qaybood kaasi qayb waa qaybta cuntada grocery shoppings khudradda iyo chokolaatada iyo waxyaabaha aad ka iibsanaysid flowerska ka iibsanaysid qaybna waxa weeyaan qayb cuntooyinka lagu sameeyo sidii restaurantadoo kale ah laakiin waa locals like maaha sida McDonald's meelaha dee maaha aynu naqaano oo kale maaha laakiin waa locals dadka magaalada degan ayaa cuntada ku sameeya waan soo arki doona Right? No. Can I buy you guys some? Can I buy one? Yeah, can I get some? Olive? halkani waxa weeyaan banaanka marketka waxa la yiri waqtiga samarka aad iyo aad dalxiisadayaal aad u fara badan ayaa yimaada halkan ayay fadhiistaan ka cunteeyaan cuntadooda soo qaataan that beautiful view bay ka daawadaan laakiin deemka waa qaboob iyo dabayl dad badani ma joogaan iminkana qaybtani waa public market What is dates? And you see the bucket? Oh yeah. Yeah, the bucket's at home. You have too bright in your eyes. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح I can't buy it for you. حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح alxamdulilah waan soo noqonay iminkana waxaan joognaa Bellingham oo Washington State ku taala halkan baanu ka qadaynaynaa sidii aan saaka u soo baxnayna breakfast ka restaurant uga soconay maanan cuntaynin halkan baanu joognaa ka cuntaynaynaa insha Allah dabadeetana waxaan tegaynaa Seattle Washington hadii Ilaahay yiraahdo aad baan idin salaamayaa thank you for watching baan idin leeyahay فؤادا توكل
بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبال